هلو السلام عليكم خيري برواقة نرجعني أو فتحي عبسية إنان يرو إلى سوحري دو حتري حبرير waxaan doonayaa inaan kaala tashado hooyaday intii ay aabahay kala tageen dhowr nin bay guursatay haday jeerna nimanku way nala soo degaan aabahay hooyaday afar caruur isu dhaleen da-ahayaguna waa 17 jir iyo 9 inta u dhaxaysa markaa tiraba 3 jeer bay hooyay guursatay waan garanayaa hooyaday dee waa qof bini aadana oo maaragtay iyadoo wehelo baahan oo maaragtay dee qof weli da'yar weeye laakiin runtii aad bay ii dhibtaa dee rag aanay nagala tashan oo maaragtay iska soo degaya gurigii last minute-kii lagu sheegayo leeyahay hooyo waan guursaday adeerkii marta aad bay ii dhibtaa bay tiri arrintaasi hadhowna iyadoon annagii nagala tashan dee sheekadii ay iska dhamaato waanan jeclaan lahaa hooyada in guur ku hagaago dee aabahay kadib inay halkaa noogu xidhnaato anba ma jecli waa beritaan anagu iska kala wada tegaynaayo hooyaday waa qof bini aadan oo hel bay u baahan tahay laakiin haddii kii hore shaqayn waayo kii labaad shaqayn waayo inay mid saddexaad nagu dul keento kiina imika uu shaqayn la-yahay oo u eg tahay inuu sii socdo aanan ogahay inay maaragtay mid kale noo keeni doonto I don't know waxaan ku idhaahdo de habar yar ila tali maxaa sameeyaa dumarayooga Soomaaliyeed hal nin markay kala tagaan ka ugu horeeya markay kala tagaan xabada ma laba caruur ay ku dul gaboobi jireen oo ku mintidi jireen imika waqtigan lagu jiro dee sidii hore ma aha oo dumarku xaq way u leeyihiin iyaguba inay dee bini aadan weeyaan oo dee needs bay leeyihiin oo dareen bay leeyihiin oo waa loo baahan yahay dee way u baahanayaan qof ay nolosha la qaybsadaan laakiin walaalayaal wixii baa kala ah run ahaantii dhowr jeeroo horena waan arkay gabadh waxaan garanayaa 5 nin guursatay caruurteedii oo yaryar oo mid walba shandadiisii uun soo qaato guriga yimid 5 dee waxaasoo kale guur maaha dee come on dee walaalayaal guursada laakiin hablaha Soomaaliyeed waad ogtihiin maanta xaalku siduu yahay waynu ognahay hadeer in raggii ay u bateenba nasiib daro ay u bateen rag doonaya gurigii gabadha u soo guuraan oo caruurta caanaha la cabaan oo halkaa ku dul shaqaystaan oo wax ka urursadaan oo business Soomaaliya ka furta iyo hawla iyo this is waa qofku isticmaalaya waxaasi guur maaha guurka sax ah aniga hooyaday iyo aabahay way kala tageen hooyaday dib bay u guursatay adeerkay ilo ku naxariiso dee aabahay kulunbu noo ahaa guri weyn buu hooyaday dejiyey gurigii hooyo markay ay aabe kala tageen gurigii waanu ka baxnay guri kale aanu degnay waanu sii deganaan karaynay kaasuu halkiisii kasii wadi karay maca alaabadii buu bedelay adeerkay ilo ku naxariiso hiisoon guri buu samaystay raggii hore sidaasay samayn jireen imikana waxaa socota rag shandadii soo jiidanaya oo iska imanaya oo sariirtii ninkii hore dhinaca kaga seexanaya halku seexan jiray ta keensanaysa yadna odhanaysa iska soo huluulo baanba ka yaaban hadduu guuridin ka xumaado oo aad mid kale guurstaan oo kaasina xumaado dee inaad caruurta u keenina waa gurigaaga degana oo noloshaada hayso oo inaadeer wiikanada aynu isu nimaadna ku dheynta caruurtaada ku korayso what are you doing iska guursa maxay tahay waxaas guur maahe inama beri waxay ku yidhahdeen dadka qaar baa dheyrinka iyo guurku iskaga khaldama haasaawaha iyo guurku yay iskaga kiin khaldamin war annaga ayaa aragnay haddii kii aad la yara haasawdaan ee liilalo uu isugu kiin yara baxaba aad oranayso shandada soo qaado caruurtii soo dhex seexinayso waa adaad khalad weeyaan waa khalad aad midda kale welwel baaba anigay dil lahaa welwel laakiin sanadka maanta waxa batay rag u arka dumarka single mother-ta ah sac la maalayo guri bay iska degan tahay gaadhay iska haysataa nolol yaro fiican bay iska haysataa dee waxba kaagama baahnee habeenkuunu soo huluulo haddii aad aabahood kala tagteen oo aad mar kale isku dayday oo uu kaa xumaado mar labaadka iyo mar saddexaadkaba banaanka ha deganaado ninku anigu saasaan qabaa banaanka ha deganaado inta aad si fiican isaga baranaysid horta
aad wuxuu galo iyo wuxuu gudo hadhowna uu doonayo inuu guri idin kirayo aad meel kale u wada guurtaan oo idin dhaxaysaad wada leedihiin dee waa wax wanaagsan laakiin caruurtan dadka qalaad la dhex keenayo aad iyo aad iyo aad bay u khaldan tahay anigu sidaan arko aad iyo aad iyo aad bay u khaldan tahay waxaan ku yidhi hooyada habreer la hadal waxaad ku tiraahdaa hooyo sidan inama anfacdo comfortable kuma ihi raalli kama ihi nimankan qalaad aad mar walbana dhex keenayso dee ilaahay baana kaa baday soomaalidu waxay tiraahdaa inankaagu markuu hiilkaa mudan yahay bay igu yidhahdeen wax walba raggunbaa loo hiiliyaa sidaanan anagu xaq u lahayn inaanu doorano nin wanaagsan oo aanay naga ahayn inaanu maaragtay dee u hiilino ubadkayga aniguse waxaan qabaa waa ubadkaagu marbuu hiilkaaga baahan yahay waa markaad aabahooda ama hooyadood guursanaysid walaalayaa isku xishooda hablahow haddaad ninkii hore kala tagteen caruurna ay meeshii joogto fadlan caruurtaa waa inaad ka fikirtaa waa inaad la tashataa waa inaad ninka si fiican isaga barataa guurka labaad hadduu kaa xumaado mid saddexaad inta caruurtaasi korayso haba keenin haddii aad ka maarmi weydana banaanka isku qaba caruurtaasi gurigooda free ha u ahaato naayaadhe aniga saasay kule ila tahay taasi waa taa talada labaad waxay ahayd inaan igu yidhi fadxiye waxaan ahay nin guur jecel buu yidhi xaas baanu kala tagnay inan yar bay ii dhashay inankii aniga haystaa inankaygu waa 5 jiro anaa haystaa ilaahay saaleh wuxuu yidhi gabadh baan guursaday waayo cidlada waa necabahay gabadhii inankii yaraaba iga xumaysa dabadeetna guurkiiba waan ka fiigayoo gooraan cararay haddeerna waxaan doonayaa walaal inaan guursado nin cidlo jecel ma ihi mar waxaan dhahdaa bilaahi tii oo kale kugu noqotaayo inanka yar kaa xumaysaa banaankaagaa iska joogo inankaaga iska korso haddana nin ragaan ahayoo dee xaas waan u baahanay gabadh waan u baahanay marka walaal maxaan sameeyaa miyaan iska ugaadhoobaa mise waan iska badheedhaa mar kale wallahi tala igu adag bay ahayd walaalayaal weliga waynu maqli jirnay aayo soomaaliyeed u malayn maayo aayooyinka soomaaliyeed siday u xun yihiin in aayooyinka kale u xun yihiin way jiri jireen waa sheekooyin caana aayaa u xumaysay cinderella aayadeedoo kale dumarka soomaaliyeed heesaaba laga tiriyey eedooy walba sidaas aayo hees reexamar ahayd eedaan la yaabe miyay ahayd mise ayaan la yaabe kulligeen waxaan u malaynaya waynu wada garanaynaa aayo xun qof soomaaliyon aayo xun garanayni ma jiro dumarka soomaaliyeedoo ma halkii islaamihii baa weli taagantihiin kala ximin jiray caruurtay aayada u yihiin iyo ubadkooda qaar baa foosto ku afgembiyi jiray ilmaha yar markuu aabihii soo dhow yahay odhan jiray naga qariya haddeeru hoosta kasoo gelayaay caruurtoodana cuntada inta wanaagsan ee isugu hagaajiyee nafaqada leh ilmaha yaree kale ninkoodu dhalayna wax yar oo xun meel u dhiga waxaasaa haddaba saqajaannimada la sheegaa iyo inangumeednimada la sheegaa waa qofkaasoo kale nin iyo naagba laakiin naagaha u badnaa weligood saqajaamin kala doorta caruurta yaryar kala findhicile kala qaada ilmo yaroo sabiya maxay kala xintamaysaa bal caqligeeda ninkiina way rabtaa doqoniimadeeda ninkiina way rabtaa ilmihiisiina way qoqobaysaayoo way ximinaysaayoo way bacsanaysaayoo way liidaysaayoo way gaajiyo dayac bay ku dilaysaa welima wixii bayna daba socdaa welima dhaqankaasaynu dabada haynaa kuwa dibadaha jooga waa la sheegaya waxaa iyaguna sameeya caruurtay aayada u yihiin ximiya kadabgo oo maxaad u guursan nin caruur leh haddii caqligaaguba intaa leegyahay caqligaaguba hadduu intaa leegyahay naa isku xishooda oo ilmaha yaree ninkiinu idiinla yimaado aada guursataan waa ilmahaagoo kale hoosta geli oo jeclow oo ha dhibsan subxaan allah way dhici kartaayoo caruur yaroo qaxar badan oo nafta kuu keenaysaa jirta laakiin side waa kaagoo kale waa ilmahaagoo kale
ogaada inaad ilaahay hoos taagantihiin subxaana wa tacaala inta aad ilmihiina siisaan in leeg la mid ah siiya cuqubada iska duwa cuqubada iska duwa Soomaaliya cuquba halkaan dhigtay cuqubada iska duwa subxaan allah حتى هدي teenager yihiin nafta ku keena حتى qof aan whoever aan jeclayn حتى mar walba adigu xaq ku dadaal cadaalad mar walba ku dadaal qofkaad necab tahay حتى waa inaad cadaalad ula dhaqmi kartaa oo xaqiisa siin kartaa macadalla ilmo yar oo ninkaagu dhaway adigu hooyo isaga tahay subxaan allah inankaa waxaan ku yidhi waraxan kuu sheegaa horta barbaryaha joog banaankaaga inanku ha kuu yara koro inanku ha gaadho meel uu maaragtay dee cadkiisa ku goosan karayo haddii la xumeeyo iyo haddii la dhibaateeyo uu aabihii u iman karayo u sheegi karayo inaadeer haddeeraad guur kale kasoo baxday bal horta isu yara kaadi wax waliba waa psychological maskaxiyan waar maskaxda program gareey discipline baynu u baahannahay we need discipline waxaan ku u yara kaadi horta inankani ha adkaado haddii ay kugu khasabtood guursatidna dee qofkaad la sheekaysanaysidna si fiican isaga baro oo soo baadh oo dad la dhaqankooda iyo nidaamkooda iyo habdhaqankooda iska xaqiiji niman badan oo Soomaaliyeed baa markay dumarka la guursadaan carruurtooda aan warba u hayn jirin meel ay wax ku cunaan meel ay seexdeen say u nool yihiin salaadii intuu buxo habeenkii saqda dhexe soo hoyin jiray balan baloo dhamina carruurta u dhammaan jiray marka ragga Soomaaliyeed waa inaad carruurtiina haddaad carruur wadataan oo dumarka la guursataan aan hooyadood ahayn carruurta waa inaa ogaataan war carruurtiina ogaada war waqti yarbaa adduunka la isla joogaa ifkaa la isu tudhaayo ilka la isma gargaaro ubadkiina ogaado just because naag baad guursatay ha ku sii dayn warayso ilmaha mar walbaad shaqo ka timaado ilmahaaga la fadhiiso oo warayso oo hadduu weliba ilmo yar yahay jidhkooda baadh inaba ku yaalaan iyo in jug loo yara qariyay just because dushaasun inaad ka aragtid oo uu kula eegyahay qof caadiya warayso waxaad tiraahdaa aabe hadday si xun kuula hadasho hadday kugu cunqunqlayso hadday ku caydo aabe ii sheeg marba la soo hadal guriga soo wac waxaad tiraahdaa hebel ama heblaayo ii dhiib ka warhaya carruurtiina ta saddexaadna waxay ahayd inan baa waxay igu tiri ninkaygii waxay tiri dhowr sanaanu isqabnay ilaahay ubadnimo kala siin wadamada reer galbeedkaanu ku noolayn ninkii Soomaaliya fasax ku tagay isagoon sharci fiicanna haysan sharcigii waa ka dhacay goormaad soo noqonaysaa baan leeyahay ii samir buu leeyahay markaan hadalka ku badayana blog buu igu taagaya waxa laaliya waxaan sameeyo garan maayo dad Soomaali's for you laysla tashan maayo qorshahaba la isuguma jiro waa ma iskuursanaa aan qorshe wadan bini aadanka wax sidaa u nooli ma jiro qof markaad iskuursataan waa noloshii qof ay isla qaybsateen tala kasta iyo go'aan kasta waa inay isla gaadhaan waxayna kala wada qaybinayaan aynu la kala wada cararaynaa ayna baabiyey ee rugi raas midna inoo diiday waa waxa qof waliba go'aan gooni iska gaadhay waliba ragii go'aan gooni iska gaadhayaan gabdhihiiba aanay tirsanaynin dumarkiiba aan hadalkoodii horba la iska saaraynba waxaan ku yidhi anigu haddaan adiga ahay wala ma sugeen nin aan waxba iigu maqnayn iska tegay xil iska saarin sharcigiisa ilaa 5 inuu ka dhacayeen kale haddeerna wadankii uu iga tegay aan soo geli karin oo de markii horeba uma tirsanayne markaad la hadashada tiraado ninkayga baa toon ku baahnay goorbaad imanaysaana baloo kugu taagaya ii samir koonay waa lugooyo cad oo halkeedii taagan eeg lugooyo weeye waa cimrigeeda halka ku cunto ina ma ay sheego dhowr nan baa xubin leedahay fadxiye intay gabadhu iska tagi lahayd ee nolol fiican heli lahayd inaanu lugta weligayo saa waxaynaanu jecel lahay oo jalaafo marba u dhigno halka cimrigeeda ay ku seegto
intaanu warwareejin karayna ee leeleelin karayna waanu warwareejinaynaa si aanay nooga tegin xataa markaanu annagu tagno hadday doonayso inay joogto weligeed saasaan lugta u haynaynaa. That's a lot of guys for you. niman badan baa sidaa u fikiraa oo naqsi iyo naqsi toona garanay siday isaga duwi lahaayeen. selfish human beings. inta goortahay baan ku yidhi cimrigaaga halkaa ku cunine waa lay qabaa waa qaane waa naagti tirimana waxay isni warnay raac naawaradoo masaajidka kuugu horeeya walaal tag. haddaanu taleefonba kuu ogolayn inuu kugula hadlo kuna qancinaynin masruuf iyo mariintoona ku siinaynin imsaa gabadh loo soo taagnaa cimrigeedii sidaa ku cuntay. jacayl kalgacal iyo ixtiraam midna meesha ma yaalo. waayo dadka hadday isjecel yihiin oo is ixtiraamayaan oo isu tirsan yihiin tallaabo kasta way isla qaadaan go-aan walba iyo talo walba way isla gaadhaan. That's not good. tashada waa un aniga dee my own opinion anigu dee expert ma ihi. khayr iyo barwaaqaynu isku ognahay nabada oo mahadsantihiin. ilaahay tubta toosan ha inugu hagaajiyo ilaahay idinkii khayr iyo barwaaqaynu isku ognahay nabada.